أميري ولولو واقليتو ولا الكاب ولولو واقليتو ولا الكاب ولولو واقليتو ولا الكاب beesha abkay abshir walaalow looge malable muuse hejow oo kamid ah jufada walaalow hoos timaada kana mid ah boqortooyada qoomiyadda sagaal ee degta geeska Afrika gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa halkan ku caleema saaranaysa nabadoonka guud ee jufada abkay abshir walaalow looge malable caleema saarka nabadoonka guud ee beesha ama jufada abkay abshir walaalow looge malable ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono wakiilo nabadoono odayaal dhaqan siyaasi waxgarad culumaa u diin dhalinyaro iyo ururka haweenka boqortooyada qoomiyadda sagaal iyo haba ugu badnaatay jufada ama beesha nabadoonka caleema saaranayso bismillaah nabadoon Ismaaciil Axmed Barrow nabadoonkan nabadoon walaalow looga waaye abshir walaalow looga waaye magac maskiin laga maakii dadkiisa iyo dalkiisa anfac Allah ka dhigo ilaahay kii barwaaqay iyo alxamdulillah iyo walaalnimo iyo midnimo oo ilaahay idinkiis oo macnaha hadii ilaahay ma dhaqameed gunto dhan nabadoon hadii la yiraahdo ummadoo dhan nabadoon u yahay insha Allah khayrkii intaas geliyo xilkiisa ilaahay la qaado Allah ka dhigo annagana insha Allah khayr kuwii walaalihiis ah oo ku garab istaagayanahay meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay nabadoon Ismaaciil Umar Barrow oo lagu bedelay Ali Saleymaal Ismaaciil Ahmed Barrow insha Allah marka sagaalka iile waxa la iskugu yimaaday sagaal isiyeed antaba waa la iskugu yimaaday insha Allah anagana maadaama gudiga aan nahay mideenta insha Allah garabkiisa aan taaganahay Ismaaciil Ahmed Barrow hadii ilaahay yiraahdo kii dalka isku soo hanuuniyo oo dalka isku soo duwo ilaahay ha ka dhigo anakana garabkiisa aan taaganahay sagaalka iile sagaal isiyeed waxaan u sheegaa insha Allah in la shaqeeyo nabadoonkaas Ismaaciil Umar Ahmed Barrow ilaahayna tawfiiqda waajiyo oo waafajiyo oo isagana ilaahay ka dhiga cadaalad talkiisa iyo guud ahaan kuwa hoos iyo kuwa koraba talkana mid ah cadaalad falo oo cadaalad ka shaqeeyo oo dalka iyo diinta iyo ilaahay ku ruuyahay wax u taro inuu ilaahay ka dhigo ayaan ku dardaarminaynaa insha Allah idinkana waa mahadsantihiin meeshan waxaan iskugu imaadnay walaalkaynu nabadoon Usmaan Axmed Barrow kaalmooy inaan duubno ayaan inta iskugu imaadnay waxaan inta iskugu imaadnay waa ka guulaysanay waa duubnay maanta waxaan taagnaa caleema saarkii Ismaaciil Axmed Barrow intiinaan lab iyo dhidig dumar iyo rag dhalinyaro odayaal culumo diin inta meesha ku soo kulantay waxa ogaanaysiin inaan nabadoon Ismaaciil Axmed Barrow kaalmooy inuu yahay nabadoon abshir reego walaalow intaas ogaanaysiin waxaa kaloo noo dheer insha Allah labada jaanib oo haddana xoogaa meesha isku haysato golaha shuurada odayaalka waxa ka soo baxay nabadoonyada waxa ka soo baxay inaan gadaal dambe gogol dhiganayno oo gogoshaas iskugu imaadayno oo gogoshaas aniga noo taalo oo sagaaliisiyaad iskugu imaadayin wixii khilaafaad ah inaan insha Allah inna laga saaray walaalow dhaxdiisa meeshii aado intaasna anaga inoo raxmantahay maantana waxaan guul ka joognaa abkay abshir oo shalay nabadoonkiisa ahay Ali Saleymaal Barrow oo maantana laga dhigay Ismaaciil Axmed Barrow kaalmooy reego walaalow oo laga dhigay intaas horta ogaanaysiin intaasaan ku soo dhawaanaysiin إن شاء الله بإذن الله الكريم محمد ماشي كوسو كولنتي وحن كوسو كولني إلهي إدينا محمد فلجيس إسماعيل أحمد برو كالموي أنا علامة صارنا ماشي كوسو كولن سخير لو كبير أنا وأشقى تلكيس هلكيس أغلبيس أزورديس سجالك إيلون لن أنا أشقى بعدين midabka magaca jareer weyn dhaqanad ku shaqeeyo ayaan ugu talagalnay inaan ku duubno oo ku calaamo saarno intaad bacdigooda ushiisa waxa walba ilaahay qafuur faligiiskiin ku caanama Allah naga dhigo kii ushiisa ilaahay qafuur raxiimka arsaaq waasac ku halna Allah ka dhigo kii mas'uuliyadiisa guta Allah ka dhigo kii ehelkiisa akhlaaqdiisa azuridiisa jeclay Allah ka dhigo kii ummadna Muhammad u tar Allah ka dhigo kii ummadda nabi Muhammad wax dheefkooda bixinay Allah ugu dhigo asagana kii barbaariyo soo barbaariyo kabiiriyo joogo jir الله كدغو كلمتاني كلمه الله غفورك الله كلمي اسماعيل waxa dardaar naga waajibku ku saaran ilaahay qafuurxiinka kugu dhawaaqay malaa'ika keentay insiga ay soo maray insiga markaas kugu dhawaaqa mas'uuliyad lagu saaray waa mas'uuliyad culus
cusmaayil ha isku dayin ilminimo inaad tahay waa ka dhaxbaxday ilminimo waa ka dhaxbaxday waxaa la rabaa sabar iyo dulqaad inaad bixiso nin xunaad arkay nin fiicnaad arkay nin ku caynaad arkay nin mucaaradka waad arkay waxaa la rabaa mas'uuliyadaada inaad gudato ilaahay idinka nabi maxamed ay fadhigiisa sabarkaada inaan ku caano maalno ninkii mas'uuliyad gudanaysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala beesha abshir walaalow oo maanta laba doon dooratay aan ku teereysanahay anigoo guddiga dhalinyarta qowmiyadda sagaalka eeylo oo qowmiyadda sagaalka eeylo anigoo matalayo sagaalka eeylo waxaan rabnaa laba doonka la caleema saaray sagaalka eeylo oo shaqeeyo oo qaasta beesha abshir walaalow ay maanta ay dooratay aan goobjoognahay anigoo cali salaamal barrow walaalkay Ismaaciil Axmed Barrow xilkan hay 2 sano oo maanta walaalahay tolkeyga aan ordaay anigoo tolkeyga oo ijecel anoo raale walaalkay aan ku wareejiyay wax dhib oo ka qabna ma jirto ugu dambeyntii nabadoonka la caleema saariyay oo nabadoon Ismaaciil Axmed Barrow Kaalmoy nabadoonka guud ee beesha abkay abshir walaalow looga malable ayaa beeshiisa iyo marti sharaftii kala duwaneed baa la hadlay una mahad celiyay kana codsaday in kaligiis uu wax wadi karin ee uu doonayo in wada shaqeyn ay dhacdo si loo gaaro horumar iyo baraaro diibay xil aan mas'uuliyadiisa ka bixi karin waliba anoo ka qoomamaynaya ii idmaday waxaan ilaahay ka baryaa awalhum inuu ilaahay ila qaado waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa ta'aala sidii la iigu dhiibay inaan wax ugu qabto haddii ay ii socon waysana walaalihii shalay ii dhiibtay anoo sideedii wada inaan u keeno waxaa kaloo codsanayaa dhammaan ehli asxaab wax meeshaan isugu yimid inay ducada igu kaalmeeyaan inay garbahayga istaagaan inay ila qaadaan xilkaan aniga la ii dhiibaan qaadi karin waxayna iyagu ila qaadaan aniga meel ma geey karo wax alaala waxay iyagu meel ila geeyaan aniga meel ii tagaayo waxaan ogeysiinaa walaalahay inay laabta furaan qalbiga la isu soo dumo aanan la isnicin walaalo aan noqono qof nacaysan nagu dhex jirin dhibkiina soo gaaro oo mid noqdo waxaa la rabaa sida maanta la iigu idmaday anigoonan doonaynin oo aad idinku iigu idmateen saas aad iigu idmateen inaad idinku ila qaadaan oo aad ii garab gashaan wax alaala wixii aan anigu gafan aad idinku saxdaan haddii aan qalad la imaado aad idinku hor istaagtaan wixii saxanna aan isla qaadano intaasaan ku soo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu